هل دبدمسنا ولا لا حتى هل دبدمس markan kadib wixii gubta waa Hormuud Telecom waxaas qarx waa haamii shidaalka waa qarxeen ajabiyadii markan waa qarxi rabaan ayaguna saakay Gurceel hal dawdamisna waa laga waayay musiiba u soo hooyad shirkadii Badar ee Gurceel ugu weyneed waa gumanaysaa waxa gumanaya waa shirkadii Badar ee Gurceel ugu weyneed waxay kamid tahay musiibooyinka ugu weyn ee Gurceel soo saameeyay abid inta Gurceel isneed biyo laguma dabin karo wax laguma dabin karo adeertana wayba dhamaataba waa saddex biyaano ee Hormuud ayaa markaan dabka ku bilaaba rabaa saddex biyaano ee Hormuud iyo ateenooyinkeedii dad badan oo xitaa gobolada dhaxadiga waxay ku tiirsan yihiin haddii ay dhacdo ama ay burburto hanti badan waa qasaaraysaa maxaa yeelay gobolada dhexe shilin lagama isticmaalo Soomaali ah waxaas qarxayaad maqlayseen waa fuustooyinkii kaalimihii shidaalka waxa qarxay waa fuustooyin shidaal halkan waxay urayaan madaxoodii hore waa baxaya halis waxa ugu jiraan u dhow xataa inay ku dhintaan maxaa yeelay saaka wax la badbaadi karo dabdamis mid ugu sokeeyo xataa laga heli karo Beledweyne haddii uu soo baxana muddo waxay ku qaadanaysaa 3 saacadood inuu wadada ku soo jiro 3 saacadood haddii wadada ku soo jirana dabaqan aad u jeedaan oo Hormuud ay leedahay waa uu burburaya waa uu burburaya dhamaantood baqaradii u jiray dhowr kiiloomitir ayaa hadda la rarayaa haddii uu dabkan uu socdo muddo 30 daqiiqo oo hadda ka dambeeda waxay ku qasbanaanaysaa inuu muddo dhowr mitir oo jaro maxaa yeelay xawaariis aad u sareeya sidaas ay taana fuustooyin ayaa iyo haamihii baabuurka kaalimaha shidaalka gadaal ayay ku jiraan kaalimihii shidaalka haamihii waaweynaa ee shidaalka gadaal ayay ku jiraan iyo xitaa baabuurtii shidaalka keenay jirtaba mana la soo bixin karo maxaa yeelay dabka dhammaantiis uu ku horeeysan yahay
وحرنت قوينيد قرعال وحرنت قوينيد قرعال وحرنت قناعسي قولada dhexe قرعال طبعا sida ogtiin magaalada maqaayadana waa maqaayada ugu weyneed ee laga heli jiray ajabkiya ku yaalay cuntadiya ku taalay wax walba ayo baqaarkaas weyn aad arkaysan waa baqaarka alaabta laga soo dalbanayo waa baqaarkii weynaayo laga soo bixin jiray alaabaha laga soo bixinayo dabkan qiyaas ahaantii hadda kadib haddii aan la dimin wax dawdamaysa loo keenin wuxuu sii socon karaa muddo dhowr saacadood maxaa yeelay meel uu istaagaa ma taalo طبعا مركان كدب bulshadu waa si ban anaga xitaa qatar ku jirna hadii aan u soo dhawaano dadka dhamaantood waa ka sikanayaan وطبعا مصيبه ugu weynayd oo abid ka dhacda meeshan oo dhanka dabka dab qabsaday ama qarax ka dhacay ba 2002 alifkii ugu dambeysay qarax ka dhaca asaguna saddex qof bay wax saas ku dhimatay musiibo aad ma ahayn balse waa tan musiibadu ugu weynayd oo qabsata hadda sida u jeedin ba ajabiyada shidaalka wali ma soo gaareen qarax dabku hadda ayuu ku bilowday korontadii oo magaalada dhan korontada mareysay korontadii adeertaan ayuu qabsaday dabku haddii uu korontada u qabsadana waxa qasab ah in magaalada dhan ay musiibo u soo gashay saak waxa gubanaya waa anti waxa la badbaadinayana waa anti ilaahay xilligan qof ku dhintay ma jiro oo qasaarahan dadka alaabaha bixinayo ku waxyeelo ma ahane qof kale oo maantay طبعا ay wax gaareen ama la leeyahay waa u dhintay ama waa u dhaawac ma jiro ilaahay waqtigaana magaalada uurada qiica ayaa magaalada qarisay oo daruuro ka dhigtay oo xitaa qorraxdii waa loo jeedi lahayd saak dhammaan inta u jirta 500 oo tilaago dabcan inta u jirta meesha gubanaysa dhankeeda qorrax u dhaca ah dadkii ku jiray xitaa baqaaradoodii waa faarujiyeen waxay u diyaar garoobeen inay ku gubtaan بدر قصارة جار وكسر كبسان كرتا بلسة ضد كمان تدا وكوس بمن يساكس كركر قصاري جار
yihiin inay dabkan ka sikadaan maxaa yeelay ragga waa ka jirjircsan yihiin balse boqolkiiba 80 qof dab u dhow hadda waxa tuurmaaya oo baxaya waa wanqar waa fuustooyinka afkoodii waxa hadda baxaya oo dadka bannaanka jooga u imaanaya هذا مرايدي هرمود يا وحي بالله يعني قرحان طبق مرايدي قرح بالله وين sida aad u jeedaan hadda dabaq wuxuu bilaabay muraayadiis inay qarxaan dhanka qorraxda soo baxa ah inay ka qarxaan xasanow dabaq muraayadiis waa qarxan dad ayaa ku jira dabaqa gudihiisa sida ay uga soo baxaan inay gadaalka baxaana waa adag tahay maxaa yeelay hore dabka ayaa haysta waxaa qarxaya hadda waa fuustooyinkii hal sikin ayuu dabku isku jarayaa oo habba guri ugu sii gudbaya maxaa yeelay guryaha magaalada waa guryo aad u safan oo meelba meel kale ku dhowdahay markay ugu yaraato oo wansigan gudahooda waxaa ku qarxaya fuusto maxaa yeelay meesha fuustooyinka ku jira 100 waa ka badan yihiin 1000 xitaa waa ka badan yihiin magaalada saaka daruuro ay noqotay daruuro hadda booyada ayaa yimaadeen booyada caadi ah oo ay biyo ku shubaan isku dayaya balse waxba ma ka qaadi karaan maxaa yeelay meeshan dabdamis oo kaliya wax ka tiri karaan booyadan wax ka tiri karin gaari kalena wax kama tiri karin ugu yaraan muddo wuxuu jarayaa hal mar oo hal shay qarxo waxay jaraysaa uradu ama holucu wuxuu gaarayaa ugu yaraan dhowr fiid ayuu kor u jarayaa waxaa qarxi raba markaan fuustooyin ayaa qarxi raba sidaan filaya maxaa yeelay fuustooyin bannaanka yaala oo baasiina ayaa sidaad u jeediin ba idinku fuustooyinka ajabiyada geeskooda yaalla waa fuustooyin baasiina holac waxay u wadaan si aad iyo aad xawaaro u leh waxayna u badanta markaa inay qarxi rabaan shay kastoo dhaca maalinba dadku waxba xasuustaan saakay waxaa lagu xasuusanayaa dabadamis in la gataa lagu talagelayaa
annaga hadda kadib waxaan halis ugu jirnaa maadaama ateenadii saxamadeedii ay gubteen inay ateenada naga tagto dad walba oo lacag ay ugu jirtay akoonadooduna inay lacagtooda waayaan maxaa yeelay ateenadii ayaa guurtay waxaas baqaarada waaweynaa ee badar ayaa dhirtaan badarradii laga baxbixinayaa dadka qaarkood waxay soo qorayaan dabcan hormuud waaba shabaab waaye hormuud ayadaaba shabaab ah dabcan sidaan filayana waa iska dheh bilaa caddayn dabkii bannaanka ayuu soo baxay markaa waa xadkiisi waaba uu soo dhaafada waxa uu qabsadana dadkii daminaya meesha bay joogeen كده والله بسم الله وسيدالك وحاسي موقته سيدالك وحاس أتقول مو دور ما كان بقى سنتبه محايا لي هانتي وينيد إشتالك أيو كتبتك لا إله طبعا كده ما كان بقى سمي إنه قبنا ينكرن عد لا سocota ama waqtigeeda ma jirto waa baqasab inuu soo ka dab gaarayo dabaqan maxaa yeelay dabku wuxuu xigaa dhanka dabaysho ayuu dabku ka xigaa dabaqa quraydihiisa ayaa daadashada ku socda طبعا نسوي دعاء إن إلهي مقالة إنه ده نسوي دعاء إن مقالة إلهي إنه ده شو